السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا قلبي channel كذا عصبتها فضل سبسكرايب صار تذكره قروح ديجل مركو إمادي UK برفا كده أي كورك نين بركة يسويني كك وايو أفر سنة ودن كان برف ما كده إنا الله مركو قروح ديجل جماهير وذاتو and today we know how bahana vlogging إنا سمينه وحنا كسمينه إمارات ستاديوم ground aad weyn waa garoonka booking gareysanay waxaan rabnaa December xilliga qabowga garoonka Arsenal suu egyahay goobaha taariikhiga garoonka Arsenal uu leeyahay kaababka meesha ku xariisan yihiin stadiumka meesha ciyaaraha laga daawado coachka meesha fariisto ee meel walbana waxaan rabnaa and I know you know my name baby girl don't lie I can tell that you're down to right. Got the bands, the moon, the stars shining through the night. Oh my, got a feeling tonight. Got the fans, the mics, the flashing lights. Come to it on this side. Oh, pretty P about to spark up a zoo. I'm knocking boots, plus I'm feeling kinda rude. asxaabta qaaliga ah ugu horeen waxaa soo galay Arsenal dukaanka qaaska ay leedahay oo dharka fanaanadaha jaakadaha dharka sportska Arsenal lagu iibiyo haddana waxaan galeynaa garoonka iyo qaybiisa kale asxaabta waxaan soo galnay garoonkii weynaa Emirates Square haddana waxaan joognaa qaybtii kaababka Arsenal ay ku guuleysatay waa kana ujeediyay ya Premier League waxaa kaloo FA Cup-kii Carling Cup-kii iyo Premier League magaca intaan la bixinin Cup-kii ugu horeeyay Premier League aan loo dheeli jiray waa ka war aniga garoonkan in la soo galo ama garoonkan in la soo booqdo waxay qaadataa sanad ya in la apply garay anigana within 3 days walikaan Pond Africa Prime Minister waxay leeyihiin wiilkeena ma ujeedin koobkii waa koobkii FA Cup-ka ya meeshuu Aubameyang iyo Bukayo Saka iyo Cesc Fabregas iyo Thierry Henry ay kasoo galeen aan ma soo galay kabar ujeedin garoonka aan joognaa garoonka waa nala ogolaan lahaa inaan galno laakiin baraf baa buuxa ma jeedaa ku qabo balma garoonka saa ujeedaan waa kana garoonka Emirates garoonka waxaa waaye shaqa ka socoto waayo 17 December ciyaar saaxiibtinimo waxay dhex maraysaa Arsenal iyo Juventus laakiin garoonka baraf baa buuxiyay nadaafad baa ka socoto